aadanuhu waa ay ku kala duwan yihiin hab muuqaalka dhalasho. waa 18 jir u dhalatay dalka India. fadlan ha ilmaamina subscribe sabta dadka cusubta kanaalka kadib furo gambalaalka si aad uga mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya. da'daydu hadda waa 18 sano jir. waxaan dareemayaa in aan koray hadda. waxay u socdaan goob laga soo dukaamaysto si ay u soo iibsato labis. dadka ayaa la amakaaga markii ay arkaan muuqaalkeeda, da'da ay jirto iyo sidoo kale dhirkeeda. inkastoo dadyowga aan haysan diinta islaamka ay rumaysan yihiin inay tahay ku dhalasho cudur iyo sidoo kale dhaqan dhaxal ah. markii aan bannaanka aado dad badan ayaa isku yimaada wayna ila yaabaan. sidee wax badan ugu qaban lahayd gabar gaaban? noocee ayaa jeceshahay dharka? ma waxaad jeceshahay dharka westernka ama farooga? dharka quruxda ah ee farooga. aad ayaan ugu faraxsanahay. xoogaan waa murugaysanahay maxaa yeelay aad ayay u gaaban tahay. murugada waxaa keenay waxay u baahan tahay caawimaadeenna. waa haddii aan samayno wax kasta. wax iyada u gaar ah xitaa ma samayn karto. laakiin sababtoo ah dherarkeeda ayay caan ku noqotay. sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay. qof kasta waxa uu samaystay qorshooyin badan xagga dhalashada. waxay hadda u dabaaldegaysaa dhalashadeeda. waxa ay gashay da'da 18 sano jirka. dadka ayaa u muujinaya farxad iyo soo dhaweyn una riyaaqay dabaaldegeeda. xusuusnow in abuurista Ilaahay ay tusaalooyin u tahay dadka adduunyada ku nool.